waryaadaheen halow waa qumayo xor xildiid waa anigiyo soo laabtay. Okay, so sheekadan I don't know maanta inaan dhammayn karayo but waxaynu ka hadlaynaa sheekadii ku saabsanayd a full moon in Libra oo 12 bisha soo socota 8 habeenimo meelahaba in the UK laga arkaya and basically wuxuu ku buuxsamayaa godka Libra la idhaaho ama miisaanka oo ah zodiac signka 7 ma fahanteen oo waxaa lagu tilmaamaa waqtiga maaragtay Libra time waa waqtiga meelaha September, I think September meelaha, so waa waqtiga autumn ku bilaabmayo haddaad joogtid Northern Hemisphere waqooyi maskaxdu ilayn laba dhinac weey naasiya quraankaba sheekadaas way ku taalaa ma fahanteen in surat al-iqra surat al-alaq waad ka arkaysaan sheekada and anyways so dayaxani wuxuu ku buuxsamayaa godka Libra ama godka miisaanka. So in terms of inaga saamaynta inagu leedahay waa maxay na saameynaysa ama maxay rabtaa inaan iftiimino ama dee aynu tacab saarno shadow meesha mugdiga ah inaynu u fiirsano right and because haddaad u fiirsatid maaragtay dayaxa right markaan lahaa waxbaan yar u fiirsaday oo beri horaa shakadan igu soo dhacday laakiin meel aan geeyo baan garan waayey so then imika the last 2 weeks baan fahmay oo siri oh my god xaggaasaabad geen karaysaaye perception infinite ilayn 8ku waxaa la yidhaha one number infinity ku saabsan ma fahanteen so maadaama numberka infinity haddaad si u eegtid waxa weeyi 2 zero soo maaha oo iskor saaran waa 8 haddaad u fiirsatidna waa dee mas islaalaabay haddaad u fiirsatid dhinacyadana waxay noqonaysaa muraayad the eyeglasska waa 2 zero oo isbarbar yaala ma fahanteen marka infinity lambar ahaan haddaad u fiirsatid labada eberes barbar yaala ama iskor saaran waa the infinity sign and then 8 marka saas markaan u eegay markaasa waxa igu soo dhacdayba automatically wallahi maahmahdii Soomaaliya oranaysay adduun waa hadh iyo labadiisa gelin and then adduun waa hadh iyo labadiisa gelin markaan u fiirsadayna halkan aan soo dhigi doonaaye waxaan u fiirsaday the moon phases shadowyada moonka ilayn dayaxu mar wuu buuxsamaa marna wuu cusayb buu noqdaa soomaa wuu iscusboonaysiiyaa so you have the new moon and the full moon whichever way it is halkanaan soo dhigi doonaaye labada dhinac left and right waan isyar dhaafsiiyaaye so marka labada haddaad u fiirsatid dee waa hadhkii laguu sheegayo soo maaha waa hadhkii laguu sheegaya lagu leeyahay adduun waa hadhiyo labadiisa gelin inta u dhaxaysa waxa weeye waqti la yidhaaho waxing ama waning moon intuu buuxsamayo ama intuu buuxsamayo ama intuu haddana eber noqonayay cause full moonku haddaad u fiirsatid waxa weeye markuu buuxsamayo inuu u fiirsano maaragtay the full moon markuu buuxsamayo waxa weeye markuu full illumination noqdo marka leydhkiisii oo dhan aad arkaysid dayaxu wuu buuxsamay wuu caddaaday basically waaqicii baa caddaaday waad si fiican baa u arkaysaa leydhkiisii illumination waa halkan illuminati the illuminated one enlightenment ka imanayso
markuu new moon yahayna waa mugdi because iminka ciidii new moon bay ku dhacday so visible maaha laydhkiisu ma arkaysid mugdigiisa arkaysaa uu ka qarsoon yahay marka the faces of the moon ilain islamic calendarku wuxuu ku saabsan yahay lunar and the lunar calendar way waa lunar moon faces of the moon so new moonku waxa weeye markuu laydhkiisa markay una visible ahayn ma arkaysid waa mugdi weeye full moonkuna waxa weeye fully illuminated waa markuu buuxsamuu caddaado wixii caddaadaan waxaasoo dhan waxay qaataan 29.5 days bay idhaahaan horta nin soomaaliya baan arkay beri qoraa soomaali oo imika goordhawey toolib wuxuu yidhi wuxuu joogay aaga soomaali galbeed buu joogay waqti buu haystay markaasuu wuxuu sameeyey inuu u fiirsado saacadda basically maalintu intay ku buuxsantaa waxaasoo dhan buu isku xisaabiyey marka wuxuu yidhi I think halkan aan soo dhigi doonaa buuggiisa haddaan helo buug buu ka qorayo I think muqdishuu kusoo bandhigay but not long ago maybe a couple of months ago and before rabadaantii baan sheekada maqlay marka wuxuu yidhi war anigaa xisaabiyey dhulkeena inagoo joogaba wax kas u fiirsaday xitaa waqtiga wuxuu yidhi bishii 30 bay ku buuxsamaysaa ama way ka yar tahay something like that iminka bishani waxa la leeyahay waxay last month March waxay ku buuxsantay 30 he was like no it's not 30 bay biluhu ku buuxsamaan so there's something wrong waqtiga timeka there's something off with the time and marka astrologically ahaan marka taariikhda xidigska la isticmaalayo astrology ahaan loo isticmaalayo moonku waxa la yidhaahaa wuxuu ku saabsan yahay emotions ama dee waxaan feelingska iyo emotionka iyo dee maxaa la yidhaahaa cadiifad baynaynu garanaa wax qarsoon weeye oo qofka isaga gubaya qof kastana waxyaala baa jira u gooniya oo isaga gubaya marka waxaasa emotionkaas ayaa laga hadlayaa iyo intuition iyo waxa subconsciouska maskaxdaada qarsoon waxa dadka kale ka qarsoon adiga kaa dhex guuxaya xasu ku saabsan yahay maamula oo waa waxaan inner self la yidhaaho marka sex waxaa energygan adceeda ama dayaxa marka energyyaashan marka the sex loo sameeyo ama dhidig ama lab laga dhigo waxay dhahaan dayaxu waa dhidig weeye adceeduna waa lab weeye but it's the opposite way of Somalihan adceed markaad baqashid waa gabadh weeye waa feminine dayax waa nin weeye waa mugdi so emotionka iyo intuitionka iyo subconsciousky ragay saameyn weyn ku leedahay because way qarinayaan waxan adduunkuna waxaasuu u gadoomayaa ama dee adduunkuba dee maaragtay basically messed up uu noqonaya iyagaa qarinaya waxoodii bay qarinayaan because naagtu waxeedu feminineka hadaad u fiirsatid wax kastaba waxeedu bannaankay yaalaan waa dadka waxa qarsoon emotionkooda subconsciouskooda waxa ka dhex guuxaya oon ooyay nimanka waxa la yidhaha ma ooyaan dhadhadha sidanay the darknesskooda nimankan iyagu wax ka dhex guuxayaan unba eventually waxaanay markay qarxaan bannaanka imanaysa oo adduunka kharibaysa marka laakiin Soomaali ahaan cadceedu waa feminine dayaxuna waa masculine ma fahanteen marka full moonkan ama this full illumination godka Libra ku dhacayaan godka miisaanka godka balanceka godka waxaan ku lehay shadow work waa inaad samaysid waxyaala waa inaad u fiirsatid maxaa kaa dhex guuxaya adiga oo de adduunka markaa saad ula jaan qaadaysaa depending on your inner emotions turmoilka adiga waxa kaa dhex guuxaya ee ku qaribaya unbaad adduunkana ula jaan qaadaysaa marka nimankiiba hadday their inner self qariban tahay that you can't expect the world to be right mogtahay
marka adduun waa hadhiga labadiisa gelin. That means that it's important raggu inay shadow working sameeyaan. They need to do this more yeah than women do. Yeah, iyaga member baan israa walaahi bilaahi diintiyo qur-aankaba iyaga usoo degtay, meaning iyagaa la hadlayaa, not necessarily naagaha. Anyways, videoga ku xiga kan baynu sii wadaynaa, sheekada way sii dheeraataya. Waa idi salaamay.